dhimashadan ayaa timid ka gadaala markii caabuq aan la garanayn uu ka dilaacay deegaanka geed cadlow oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada jowhar inta la xaqiijiyey 6 anug oo ka mid ah ardaydii wax ku baranaysay dugsiga hoose dhexe ee geed cadlow ayaa u geeriyootay caabuqaasi halka tiro kalena oo gaaraysa 20 meeyo ay la ildaran yihiin caabuqaasi mid ka mid ah macallimiinta dugsigaas wax ka dhiga oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Xasan ayaa raadiyo jowhar u xaqiijiyey jiritaanka caabuqaasi aad arrinta soo jirtada ka jirta deegaanka oo ka jirta qayb kamid ah iskuulkana ay sheegay waa ay ardayda dhigato iskuulkana ay sheegay qayb kamid ah waa ay ka jirta waa caabuq oo lagu soo kordhay meel uu imaadana ilaahay yaqaan kulli wuxuu asiib waa dadkana uga dhacaan marka jiro uga dhaca labada jir markuu uga dhacaan yani soonka sariiso soonta markay isfartana adoo ilaahay yiraahdo qofkii yani anaga leeymayso qolka deegimaayo Salebaan Qasaayo oo ka mid ah waxgaradka deegaanka geed cadlow ayaa waxaan wax ka weydiinay bal waxa ka jira deegaankaas geed cadlow iyo caabuq la sheegayo warkaas waa jira 6 qofood oo caruur ah ku dhimatay warkaas waa jira hadana dad waaweyn ilmihi waa soo gudbiyo dad waaweyn hadda la jiifo oo aan dhuuntale waaye nabar soo baxay dhuuntale waaye maxaa u maleyseen marka xanuunka waxay tahay ilaahay anagu waxaan kulli waa nabar dhuunta ka soo baxayo cudur socdo waaye anagu waxaan u yahay ma dhihi karnaa dadka caafimaadka anagu waxaas kulli ma naqaana allah lix caruur ayaa dhimatay sida aad sheegtay ilaa hadda ma jiraan dad xanuunkan uu hayo waa haya 6 caruur waa dhimatay ilmo kale oo dhalinyaro oo yar iyagana waa imaad waayeen iskoolkii dugsiga quraanka waa tagi waayeen waa jiifaan maxaa lagu qiyaasi karaa tiradooda inta la ildaran hadda wallahi inta la ildaran 20 meey hadda waa dhantahay 20 meey waa dhantahay ma soo gaarsiiseen maamulka gobolka iyo kan degmada iyo wasaaradaha ku howlan arrimaha caafimaadka anaga maanta ka hor waxaan warbixin aan soo gudbina male maanta ka hor warbixin soo gudbin maxaad ka codsanaysaan maamulka degmada kan gobolka iyo wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle intaba ama ilaahay wax ka codsanaynaa inta ka fakayso wasaaradda caafimaadka meeshaas daawo inay halkaas la soo gaaro jirida jirta ilaahay bilaahi meel marsiyo in la dadaalo oo naga far bilaadan nahay ilaahay hadda ma jiro wax hay'adaha caafimaad ah oo gaaray deegaankaasi balse waxa ay dadka deegaanka xaqiijiyeen inay u baahan yihiin in hay'adaha caafimaadka ay xoogga saaraan sidii loo baari lahaa isla markaana loo xaqiijin lahaa caabuqaasi iyo waxa dhaliyeentaba waxaanay ka codsadeen maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellaha dhexe iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeellaba in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay la soo gaaraan gargaar caafimaad